بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wanaagsan daawadayaal waa ayaan la geedii afruxoodin la socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad wadanka TV ku daawad doontaan waxa kamid ah Soomaaliya waxa ay jaadka u joojisay in ay gacanta naga maroojiso Kenya oo af labadii yeertay heshiiska Imaaraadka iyo Israa'iil oo aan wax weyn looga arkin gudaha Israa'iil South Korea oo bilowday sameynta dayuurada u dhigma F-35 iyo dal muslim ah oo la sameeysanaya haddii aan oo naga xoog badani la dagaalno Faransiiska noo soo gurman maayo xildhibaan Gariiga oo dalkiisa u dhigay hay'adda caafimaadka adduunka oo shaacisay warbixin ceeb iyo fadeexad ku ah Soomaaliya Shiinaha oo afar dal oo ku yaala qaaradda Afrika ka sameeysanaya saldhig military Trump oo loo haysto aflagaado u geystay hogaamiye caan ah oo geeriyooday iyo qoorqoor lafta gareen iyo waare oo kulmaya xilli ay haysato laba daran mid dooro qodobadaasi qodobo kale ayaad wadanka TV ku daawad doontaan taariikhdu waa 9 Sebtembar 2020 iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fidsan haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo program baleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino haddii saaxiibadeena nagu tixana ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tana ha naga hilmaamina aan ku bilaabo marka hore jaadleyda Mirooga ayaa dhegtooda lagu dhibciyay inay muddo dheer ay sugaan in dib loo furo suuqooda ugu weyn oo ah Soomaaliya sida uu ku taliyay madaxweyne xigeenka hoos loo dhigay ee William Ruto ayaa u sheegay qaadleyda in ay ku yara adkaatay in ay wada xaajo diblomaasiyadeed ay la galaan Soomaaliya oo xilligan ku mashquulsan oo la doorasho oo qabsoomaysa dhamaadka sanadkan waa sida lagu qoray Daily Nation mar uu la hadlayay Wiru TV ayuu Mr Ruto tilmaamay in ay Soomaaliya jaadka u joojisay si ay ugu gorgortanto kadib muran badeedkii dhexmaray labada dal kaasoo ay Soomaaliya 2014 horgeysay maxkamadda cadaaladda adduunka kadib markii ay Kenya sheegtay in ay leedahay dhul dhan 100,000 oo kiiloomitir oo jibaaran oo ay Soomaaliya leedahay iyagu oo ay ka wadaan Soomaaliya waxay jaadka u joojiyeen in ay gacanta naga maroojiyaan waxaan ku jirnaa wada xaajood ku saabsan in labada arrimood la kala saaro balse doorashada ayaa arrintaasi xagal daacinaysa beerleyda Rift Valley oo horay igaley u beeri jiray hadda waxa ay u weecdeen macdamiya oo looska lagu sooco iyo weliba afakaadaha oo lacag laga helo waxaan wasaaradda beeraha ugu baaqayaa in ay taageeraan beerleyda suuqa weysan si aysan u faqrin ayuu daba dhigay walow uu wasiirka beeraha Kenya Beeran Munya uu sabtidii beerleyda u sheegay in ay sabraan oo uu wada hadal socda kadib markii ay beerleyda jaadku ay ku hanjabeen in ay dibadbax dhigayaan waata dhinaca kale tana sabab kale ugu weyn sababta aan shacbiga Yahuudda sidaasi ugu riyaaqsaneen heshiis nabadeed oo run ihi waa in ay u arkaan inay iyagu sidan ugu badiso waxay ku qanacsan yihiin xaaladda taagan sida xigoosiga dhulka Falastiin oo ay awalba xabsiyo dusha ka furan ee ku kala oodeen sidoo kale ma doonayaan in ay waxna u huraan heshiis dhaca sida in ay ka noqdaan dhulalkii ay ku qabsadeen dagaalkii 1967 amaba ogolaanshaha soo noqoshada qaxootiga Falastiin ee xilligaasi qaxay dadka Yahuudda ah ayaan sidoo kale dabaala ahayn waayo way ka warqabaan in dagaalka runtahi uu kala dhaxeeyo Falastiin ee aanu kala dhaxaynin Imaaraad wala Suudaan wala Bahrain wala Saudi sidaas darteedna aanay dayuurad u kala gooshta Tel Aviv iyo Abu Dhabi aysan keenin nabad waarta wala mid taariikhi ah oo laga gaaro halka ay isku hayaan waxa intaasi dheer in ra'iisul wasaare Netanyahu aanu ogoleen inuu saxiixo heshiis dhigaya inuu joojiyo xigoosiga daanta galbeed maadaama ay taasi ka horkeenayso kooxaha midigta fog ee Yahuudda oo ah saldhigiisa siyaasadeed sidaas darteedna heshiiskan oo ay Imaaraadku markii hore ay ku sheegeen mid joojinaya xigoosiga Yahuudda oo laftiisa loo maleynayay mid lagu bisleynayay heshiis lala gala Carabta Khaliijka oo si kastaba aysan marna dhab ka ahayn in ay u istaagaan qadiyadan ayuu markiiba inkiray isagoo sheegay in aysan waxba iska bedeli doonin waxa sidoo kale isbedelay mowqifkii Imaaraadka oo sheegay in aanu joojin doonin xiriirka Israa'iil xitaa haddii ay goosato daanta galbeed yeelkeeda halka mid oo hubani waxay tahay in uu heshiiskani keeni doonin nabad ka islaaxda bariga
dhexe islamarkaana aanu qiyam siyaasadeed oo buurani ugu siyaadin doonin imaaraadka haddiiba aysan ku micno beelin maadaama ay galeen heshiis ay wax kasta hurayaan balse aanay ka heleenin wax ka badan wixii horay ay u haysteen oo uu haaraan la socdo. waataa dhinaca kaleetana shirkadda kuuriya ee aerospace ayaa bilowday isku xidhka dayuurad ay iyadu soo saarayso oo lagu samaynayo sajon koonfurta ee south korea sida ay sheegtay hay-adda barnaamijyada ciidamada ee daba. mashruucan lagu samaynaya dayuuradaha KF-X oo ay ku baxayso 8.8 trilyan oo lacagta dalkaasi ah oo u dhiganta 7.3 bilyan oo dollar ay south korea soo waday tan iyo 2015 si ay u samaysato dayuurado maxalli ah oo bedela raxanta gabowday ee F4 iyo weliba F5 sida ay sheegtay kai oo xiganaysa daba. dayuuradahan oo naqshadahooda la isku waafaqay sanadkii tagay ayaa iminka la isku xirxiraya qaybihii ugu horeeyay waxayna leeyihiin tiknoolajiyad casri ah sida raadaarka ku shaqaysa iskandanabeedka ee loo yaqaana ISA. waxay dayuuradda ugu horeysa ay diyaar noqonaysaa wejiga hore ee sanadka soo aadan ee 2021 halka ay daba filayso in dayuuradaha oo dhammi ay diyaar noqdaan 2026. waxa ay ku duuli karaan xawaare ku dhowaad 2 jeer guuxiisa ka dheereeya waxa ay gaari karaan masaafo dhan 2900 kilomitir waxayna aad u shaabahaan dayuuradda jiilka shanaad ee Mareykanka ee loo yaqaan F-35 sida kai ay sheegayso. waxa ay leedahay 10 meel oo ay garbaha gantaaluhu ay uga xirmaan iyadoo qaadi karta gantaalo badan oo cirka cir ah sida kuwa Jarmalka uu sameeyo ee loo yaqaan Irisa iyo kuwa MBD-da ee raadaarka lagu hago. waxa lixda ugu horeysa ee kambiyonka amaba sambalka ah ee la sameeya midkood la siin doona dalka muslimka ah ee Indonesia oo dayuuradahani wax ka samaysanaya iyadoo qayb ka ah mashruuca KF-X. waata dhinaca kaletana xildhibaanad Greek ah ayaa dalkeeda ku dhaliishay inuu Turkiga uu maagaya isagoo isku haleynaya Faransiiska oo aan hadhow waxba u qaban doonin markii ay xaaladdu ay xumaato jeer ay labada dal ay isku hayaan bariga badda dhexe sida ay qabto iyadoo Turkiga ku tilmaantay dalka gobolka ugu xoogan. qofna jacayl uu Greek u qabo uguma soo gurman doono markii ay xabaddu bilaabato. u dhiman ma ayaan danaha Greega ayay tiri Layan Canali oo xubin ka ah baarlamaanka Greega iyadoo ka socota xisbiga shuuciga ah oo shir jaraa'id qabtay. waxa ay iskaashiga ay Athens la samaysanaysa Paris ku tilmaamtay qalad weyn. Canali oo sidoo kale wariye ah waxa ay dadka Greega xasuusisay in madaxweynihii hore ee Faransiiska ee Gesra Esan uu ahaa ninkii u oleeyay in ay Greegu ku biiraan midowga Yurub balse markii dambe ku dooday in laga saaro. waxay kaloo soo qaadatay ra'iisul wasaarihii hore ee Alian Juppe oo 2017 madaxweyne isu sharaxay kaasoo ku dooday in Greega laga saaro midowga Yurub iyadoo aan juuq loo oran. Greega ayaa doonaya inuu joojiyo sahanka saliidda iyo gaaska ee uu Turkigu ka wada xeebihiisa iyagoo ku doodaya in Jazaa'ir yaryar oo uu Greegu leeyahay oo ku dhow xeebaha Turkiga ay leeyihiin qalfoof qaaradeed iyo weliba aag dhaqaale oo gaas ah taasoo la mid ah mid ay Yemen ay ku doodayso oo Jazaa'irka Soqodra ay ka mid tahay. si kastaba Turkiga ayaa muujiyay in walow ay tani ka horjeedo xeer badeedka caalamiga ah in misna laga wada aninsado oo xal wadar guul ah laga gaaro balse dalal uu Faransiisku ka mid yahay ayaa Greega oo ah dal qaamaysan gadaal ka juqaynaya isagoo xitaa hubeynaya qobrisiinta koonfureed oo Greega hoostaga isla markaana dayuurada deeq iyo iib ah isugu jira ay siinaya Greega. dalal muslim ah oo ay Masar iyo Imaaraadku ka mid yihiin ayaa sidoo kale hiilo u muujiyay Greega balse uma muuqato mid intaasi dhaafsiisan. waata dhinaca kaleetana sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka dalalka Kenya, Zimbabwe, Uganda, Soomaaliya iyo Nigeria ayaa safka hore kaga jira kiisaska musuqmaasuqa ah ee lagu sameeyay qalabka iyo weliba qarashkii loogu talagalay la dagaalanka cudurka corona. sidoo kale waxa warbixinta lagu cadeeyay in ay jiri karaan dalal badan oo kale oo ku kacay musuqmaasuqa lacagtii ay hay-addu ugu tala gashay la dagaalanka cudurkan corona. agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom ayaa sheegay in musuqmaasuqa qalabka badqabka shaqaalaha caafimaadka uu la mid yahay dil heer kasta amaba nuuc kasta oo musuqmaasuq ee lama aqbali karo. si kastaba ha noqotee musuqmaasuqa la xiriira qalabka badqabka shaqaalaha caafimaadka aniga ahaan runtii waa dil sababtoo ah haddii shaqaalaha caafimaadku ay shaqeeyaan bilaa qalab
al-shabaab waxaa khatar gelinaya noloshooda cudurka corona, taasna waxa ay sidoo kale halis gelinaysaa nolosha dadka ay u adeegayaan, marka waa dembi waana dil, ayuu yidhi Dr. Tedros Adhanom. siyaasiyiinta ka tirsan mucaaradka ayaa horay ugu eedeeyey dowladda Soomaaliya, gaar ahaanna wasaaradda caafimaadka, in ay muwaasuqday qalabkii iyo dhaqaalihii loogu talagalay la dagaalanka cudurka corona, inkastoo dowladdu ay iska fogaysay eedeyntaasi. dhinaca kaleetana dowladda Shiinaha ayaa wada qorshe ay ku doonaysa in ay saldhigyo military ugu samaysato qaar ka mid ah wadamada ku yaala Afrika si ay qaaradda ugu yeelato awood military oo baaxad weyn. waaxda difaaca ee dowladda Mareykanka ayaa laga soo xigtay in dowladda Shiinaha ay doonayso in ay saldhigyo military ka samaysato dalalka Tanzania, Kenya iyo Angola iyo sidoo kale dalka Seychelles. dowladahan dhulkeeda la sheegay in ay Shiinaha saldhigyo military ay ka furanayso ayaan weli ka hadlin jiritaanka warkan, waxaana warkani laga soo xigtay dowladda Mareykanka. markii laga soo tago saldhigga uu hadda ku leeyahay Djibouti, Shiinaha wuxuu aad ugu muuqdaa mid ka fekeraya inuu xarumo kale oo military samaysto si ay u taageeraan ciidamada cirka, badda iyo dhulka, ayaa lagu yiri warkan laga soo xigtay waaxda difaaca Mareykanka. dhinaca kaleetana hay-adda gargaarka Nelson Mandela ayaa ka jawaabtay hadal la sheegay inuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ka sheegay madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika kana soo horjeeday taliskii caddaanka dalkaasi Nelson Mandela. hadalkan ayaa laga soo xigtay buugga cusub ee qareenkii hore ee Trump, Michael Cohen, oo soo baxay shalay. Mr. Cohen wuxuu buuggaasi ku qoray in Trump uu hadallo cunsuriyad ah ka sheegay Nelson Mandela. wuxuu sheegay in Trump uu yiri in madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika ee geeriyooday uusan ahayn hogaamiye hal dal oo xukumay qof madow ah oo aan ahayn wasaq, dhammaantood waa musqulo, ayuu mar yidhi Trump, sida laga soo xigtay Mr. Cohen. hase ahaatee aqalka cad ayaa sheegay in qareenku uu been sheegayo. hay-adda gargaarka Nelson Mandela ayaa ugu baaqday Trump in uu ka laabto hadalkaasi, waxaana Mr. Trump looga bartay mar walba hadallo abuuraya naceeb iyo muran. ugu dambeynna hogaamiyaasha Galmudug iyo Hirshabelle Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor iyo Maxamed Cabdi Waare ayaa tegay magaalada Baydhaba oo ay kulan wada tashi ah kula yeelan doonaan hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen. saddexda mas'uul ayaa ka hadli doona waxa ay ka yeeli doonaan caasumaad uga timid Muqdisho oo ah in ay ku soo biiraan shirka madaxweyne Farmaajo iyo weliba hogaamiyaasha kale ee Jubbaland iyo Puntland. Axmed Madoobe iyo Siciid Dani ayaa shuruud ka dhigay in shirka Muqdisho ay ku soo biiraan Qoorqoor, Laftagareen iyo Waare si heshiis buuxa oo loo dhan yahay looga gaaro arrimaha doorashada, taasoo madaxtooyada Soomaaliya ay aqbashay. sidoo kale beesha caalamka ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii saddexda hogaamiye goboleed ee maqan ay u imaan lahayeen Muqdisho. Qoorqoor, Waare iyo Laftagareen ayaa waxaa haysta laba daran mid dooro oo kale ah inay Muqdisho yimaadaan oo ay aqbalaan in heshiiska Dhuusamareeb 3 uusan waxba ka jirin, iyo in ay diidaan oo ay noqdaan caqabad cusub oo hortaagan sidii loo soo afjari lahaa khilaafka ka taagan arrimaha doorashada. saddexdan hogaamiye goboleed ee ku xiran dowladda Soomaaliya ayaa haddii ay Muqdisho yimaadaan oo ay aqbalaan shuruudda Dani iyo weliba Axmed Madoobe u ekaan doona kuwa ay ka saameen iyo weliba miisaan culus yihiin Dani iyo Axmed Madoobe oo markii horeba galay heshiis ay og yihiin inuusan meelna gaari doonin. sidoo kale haddii ay diidaan waxa ay noqon doonaan caqabad cusub, waxaana wajihi doonaa cadaadiska beesha caalamka oo ay ka go'an tahay in heshiiska lagu gaaro Muqdisho. qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka TV. inta aynu ka gaarayna warka yaga xiga waxa in kaga tagaynaa guul iyo gobonimo.